صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان علماء يمرت شرفت كلا يوالدينتا waxaan ku salaamayaa marka koobaad salaanta islaamka oo ah assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. mar labaad walaalayaal waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa ka xaafad ahaan waxaan u soo dhaweynaynaa si wanaagsan oo qiimo leh oo sharaf leh hindisaha walaalkeen Sheekh Nasruddin Maxamed Cabdillaahi oo la yimid oo ah waxa weeyaan inuu inoo bilaabo markaskaas iyo goobta quraanka kariimka lagu baranayo. ilaahayna waxaanu ka baryaynaa in ilaahay ka dhigo markas barakaysan oo waxa loo bilaabay oo ah barashada quraanka kariimka in ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku guuleeyo oo dad iyo jiil quraanka xifdisan ay ka soo baxaan. ilaahay baan ka baryaynaa taa kulli waqtiga kooban awgeed waxaan jeclaysan inaan yiraahdo oo ku baraarujiyo quraanka iyo qiimaha iyo wanaagga uu leeyahay. iyo qodobka labaad oo ah maanta waxyaabaha ay doonayaan fikradaha qarbiga ama gaaladu cidda waxay rabaan inay dadka muslimiinta ka leexiyaan inuu yahay quraanka. walaalayaal quraanka waa hadalkii ilaahay subhanahu wa ta'ala waana kalaamkii rahmaanka. ilaahay baa u soo dejiyay caalamkan in lagu maamulo. ilaahay baa u soo dejiyay cisi iyo sharaf cidda qabsata inay noqoto oo rasuulka yiri sallallahu alayhi wasallam inna allaha la yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. ilaahay kitaabkan qolooyin buu cisi iyo sharaf ku siiya kuwa kale oo ka tagayna way diloobaan buu rasuulku yiri sallallahu alayhi wasallam. quraanku ilaahay baa rasuulkii uu soo diray baa inooga waramay markaas rasuulku wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam quraanku maalinta qiyaamaha uu imanaya iyadoo ay hor kacayaan labada suuradood suuratul baqara iyo aal imraan oo ay u doodayaan cidii ehelka u ahayd ay u doodayaan oo ay u ergeynayaan. ilaahayna ergada quraanka waa aqbalaya sidoo rasuulku inoo sheegay sallallahu alayhi wasallam. quraanku wanaaga iyo qiimaha uu leeyahay iyo sharafta uu leeyahay bay gaal rabtaa maanta inay inaga leexiyaan. laba qodob bay maanta doonayaan in nagala dagaalamaan. qodobka koobaad ee ay doonayaan in nagala dagaalamaan wuxuu yahay in ay quraankan barashadiisa dadka ka leexiyaan. dabeedna markaas waxay leeyihiin inta quraanku ummadan u dhex joogo ee dadka quraanka ay baranayaan ee bulshadu ay yihiin kuwa quraanka u dareeraya ee bulshadu ay yihiin kuwa kitaabka ilaahay dhinaca ku sita ma gaarayna bay yiraahdeen maqsadkeena iyo ujeedada aynu leenahay oo ah inaynu muslimiinta luminayno leexino oo iyaga ayaa rabaa inay sida iyagu yihiin inaga dhigaan. marka waxay leeyihiin inta quraanka ay gacanta ku hayaan uma taageeli karno mana qabsan karnay leeyihiin. laakiin maalinta ay quraanka ka leexdaan muslimiintu ee kitaabka quraanka laga leexiyo inaynu ubadkeena ku tarbiyadeyno maalintaasi ogow waa maalin inaga guuleystay oo ay gaal inaga guuleysatay. qodobka labaad ay doonayaan inay nagala dagaalamaan wuxuu yahay xagga akhlaaqda iyo aadaabiyadka quraanka iyo diinta islaamku in amrayso ayaa waxay doonayaan inay naga leexiyaan. markaas waxay ku dadaalayaan in ay ummadda muslimiinta daayirtooda ay ka dhigaan kuwa aan ku salaysnayn akhlaaqiyadkooda iyo aadaabiyadkooda kuwa aan ku salaysnayn diinta islaamka. markaas waxyaabo fara badan la inoo soo waariday waxyaabo fara badan la inoo keenay wax badan la inoo fudeydiyay si aynu uga leexano. marka aynu ilaashano akhlaaqda iyo waxa weeyaan aadaabiyadka islaamiga aynu ilaashano ku dadaalno. waxaan ku soo koobayaa barashada quraanka waa shay muhiim ah ubadkeena aynu ku tarbiyadeyno inaguna aynu marka baranno markaskan iyo goobtanina waynu soo dhaweynaynaa. ilaahayna waxaanu ka baryaynaa meel waxa weeyaan cizi iyo sharafta loo asaasay lagu gaaro ilaahay inuu ka dhigo. walaalkeen Nasruddin waynu ognahay inuu yahay dadka u ehelka ah waxa weeyaan xagga tadriiska iyo gudbinta quraanka iyo dadka daayirta qaabka waxa weeyaan loogu dhigo. marka insha Allah ta'ala khayr badan baynu rajaynaynaa. insha Allah mar dambaynu ku kulmi doonaa goobtan hadii ilaahay na gaarsiiyo inaga oo maqsad badan iyo arday badan oo quraanka ka qalin jabinaysa waxa weeyaan xafladda u qabanayna ayaa insha Allah ta'ala ilaahay ka baryahay mar dambe isu keen kulmiyo oo halkan isugu nimaadno. wabillahi tawfiiq. wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.